meeshaan waxaan ahay Cusmaan Maxamed Cabdi Xasan oo ninka xukumo ciidankan degmada Jallaqsi. meeshaan waxaan ku cadeynaa xaaladda ku sugan yahay ciidankaas aniga hadda xukumo. ciidanka hadda aniga xukumo waxa ii soo magacaabay oo ii soo diray taliyaha guutada Faarax Magurey Faarax Kuush. maalintuu ii soo diray iyo maanta intii ka dhaxaydo habeenkaas waxa ay taliyo uga dhaaf haddii ciidankaas xaaladda ku sugnaa oo ku sugan yahay aniga ka dabay maana wuri ciidanka xuquuqdiisina waa diyaar. waqti 2 sano laga joogay waqtigaas ciidankan marxaladaha kala gedisan oo soo maray amba xaaladaha ku jiro ciidankan dhibaatada ugu xoog badan oo ku jiro ayukan wax xuquuqaad aan lahayn waxa uu dheeriyo dagaalada ku jiraan ina kee dhintaa waaba dhinto waa la aas kee dhaawacmaa wax caafimaad oo una helay inuu meel lagu daaweeyo una jirin cid qaadaysa ina jirin inuu wax uu leeyahay ka dhintay waaba dhintay ka noolune wax xuquuqaad uu leeyahay ina jirin risaasta iyo soo gata cadawga oo ku ridata kala meel ku gashanaan ina jirin haba yaraadaan wax xuquuqaad ah oo wuxuu ciidamada xoogga dalka ay leeyihiin haday caafimaad tahay haday dariis tahay haday gaadiid tahay haday risaas tahay haday ay raashin tahay haba yaraadaan wuxuu helo raashinka maru bilowday haddana dib looga jaray wax haba yaraadaan ciidankaas oo helaaho ina jirno xagga dawladda ka yimaada muddo 7 sano ay ku sugan yihiin degmada Jallaqsi. degmooyinka gobolka Hiiraan ciidamada joogay kamid yihiin sidii uu hawl galaan iyo si ka dheeriyo hawl galaan. degmada Jallaqsi waxa hoos timaado tuulooyin 300 oo tuulo gaara 300 oo tuulo wax yar ma inta kale tan ay xor tahay waxa xoreen ciidankaas yihiin maantana ay ku sugan yihiin xaaladaha ku sugan yihiin ciidankaas. dawladda federaalka waxaan u sheegayaa oo u sareeyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul wasaaraha Mudane Xasan Cali Khayre, taliyaha xoogga Odawaay Yuusuf Raage asaguna oo ku arkay maadaama taliyaha xoogga maanta oo taliyaha xoogga yaa soo aabaan duulaha xoogga asaga iyo taliyaha qaybta aan ugu feeliyay ciidanka degmada Jallaqsi jooga halkaan ay ku garaan cuna oo garaan u daga oo bil ugu dago muddo 2 sano iyo 6 bilood oo u dagay dib looga jaray intaan wixii kale inuu soo dhameystiray aan ka sugaynay. maantay waxaan halkaan ka codsanayaa madaxda sharafta leh ciidanka degmada Jallaqsi jooga xaaladdu ku sugan yahay ay u soo adkaystaan inta nool inta dhaawac ah oo taalo saldhiga taalo ama xaafadaha taalo ay ku sugan yihiin ha ka soo gaaraan xuquuqday leeyihiin ay xaq u leeyihiin. maanta mas'uuliyadda hayaan ilaahayna wuxuu ka weydiina dalkan ayuu ka mas'uul ha ka soo gaaraano. wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.